cabitaankan wuxuu u fiican yahay tayroodha jirka oo dhan nadiifinta jirka buu aad ugu fiican yahay aad mooska iyo isaga haddii la isku daro iyo ciir kokoneedkan lawsaska caanaha adag oo dhan oo caafimaadka xambaarsan marka aad midhahan ku darto kaale iska arag maasha Allah tabaarakallah yaaba sheegi karaba ani hadda cashan ka dhiganaya quraacna waan ka dhigtaa mararka qaar inta caagayga ku sii ruuxdo aan iyagiyo ciir isku qaataa mooskan wuu madoobaadaa saynu ognahay moosku markuu xoogaa joogo markaa waan ka reebaa caagayga san maantaba ka juldhuqsadaa intaan sii socdoo dhan quraacdayda buuxda saasuu iigu noqdaa maasha Allah tabaarakallah waxa uu xambaarsan yahay iyo siduu jidhka u nadiifiyana kaale iska arag maasha Allah tabaarakallah haddaad rabto inaad korkaaga nadiifiso wuuba u baahan yahay inaad korkaaga jidhkaaga nadiifiso aad iyo aad baad ugu baahan tahay cabitaankan cab ku nadiifi jidhkaaga ku nafaqayso isku noolee marka hadda waan fiiqaynaa ama waan diiraynaa ama qubkaan ka saaraynaa hadba sidaad u taqaano mooska waan soo jarjaray sababtu tahay waxaanan idin tusi karaynin wuu mid diidaya inay saxanka igaga dhacdo sanqadha bixiso saxankana ay iga gaadho markaa waa jarjaray waa kana kii kalena waxaan ku shuba sidaa uu eegyuhu dhiig u yahay buu dhiig ku gelinaya iyo faytamiin markaa waan shiidayaa sanqadhan inta la shiidayo dee waa sanqadh meedhan ma dhageysan kartaan sanqadha marka waa soo shiidaya oo isku soo noqonaynaa markaan soo shiido هاي بربور ير وأنا بدنا بيلين مدو وكواس مدها يربع ربع أنا بقول كعبة لكن ويل يربعه وربعين ويلعبه ساسا نقرب يا مركا إن شاء الله وحنقص شوية وحنكمل يا قب كاير تبعتنا وحنقص شوية جرافها بس انت وين ما وانتس انت ساكاد marka malabkaanan waxaan rabaa inaan ku daro hal qaado ama hal malqacad waa isba original kan malabadu waaweeno manoko hani iyo baan isticmaalaa kanan caawa isticmaalaya marka garaafaan ku soo miiraya way isu soo laabanayna عسيرك واكا وان ميراي ساسو علايس ساسو نقض قادده ولي waxa ku dhagan malabkii madaha yaryar way waxaan ka meeray wax weyn maaha waana ku cabi kartaa iyaga ba caloosha si nadiifinayo jilcinayaba laakiin marka ciyaalku cabayaan iyo wad iska risaan oo kala reebi kartaa markaad kaliga tahayna ku malafso iyo ku diidayo hadaadan jeclayna iska meer sababtu tahay markuu isagoo nool bay hayba waan maashaalida ama boorash ku darsanaba waan ku cabnaa waan ku cunaa dad cabtana waxba kuma yeelisad ku dhex cabto hadda waa taasa waa ka meera intaas ay noqotay baaqulidan dhan intaas laga meera malabkii baa wali qaadada ku dhaganba way casiirka qabooba ama cabitaanka marka إن شاء الله عسير كان نسانو كصبح wax la wadaba waa ka fuqay malabkii waxaad samaysaa walaalayaal oo galiya googlaha wadan kasta
وأد شوكت لوقدي هداد عربي تقان هداد إنجليش تقان هداد محي هيتوي سومالي ما قرانيو إنو سومالي wax fiican kale kuma keenayo laakiin luqadaha kala taqaano ku bedel macluumaad aad u fara badan oo aanan anigu sheegin bad adigana arkaysaa qaasatan dadka tayroodh qaba dadka wasakhdu ka buuxda jirkooda oo aan xoog isu nadiifinin jirkaaga bishii waa inaad 2 mar nadiifisaa waxa jira cabitaano fara badan oo korka nadiifiya oo korka u fiican oo waxaan ku ori ku nadiifinaya wasakhda ka saaraya dhiiga nadiifinaya maqaarka nadiifinaya dhul badan nadiifinaya marka baaro markaad dhageysato baaro insha Allah bidmillaahi kariin gali googlaha wixii ku jira halka kala soo bax garaafihi baan ku shubaynaa sidaan u cabno ama jeegi marka wali waa isla soconaynaa waa la soo diyaariyay saana ku soo baxay markii garaafa lagu shubay ma sha Allah tabarakallah qurux buu noqday ishu ka deeqay intaadan dhadhaminin buu isha ka deeqaya marka ma sha Allah tabarakallah nala sheer gareeya ku soo dhawaada tijaabiya ka wardoona idinka laftigeena inaan ila waxa marka lagu sheego waa la raadiyaa Soomaa waan ka xumahay walaalaheena jooga wadankii hooyo laakiin iyagana wax u dhigma oo cabitaankan u dhigma ama casiirkan ama sharaabkan ayaan iyagana u soo gelinayaa insha Allah bidmillaahi kariin oo jirka u nadiifiya oo ka saara kolestaroolka iyo subaga iyo wasakhda ku jirta jirka nafaqo badan siinaya oo korka u roon ayaan iyagana u soo gelinaya oo wadan kasto aad joogto gaar ahaan wadankii hooyo meel walba uu yaalaa marka iyagana kaasaan u soo gelinaya kana ka si faa'iideysta u malayn ma midhahan inay wali wadankeeni gaadheen laakiin waan keenaya hadii Ilaahay qadaro sababtu tahay hadda wax walba way fududaadeen siidadkii marka insha Allah bidmillaahi kariin aan laftayga wax rabaa inaan qayb ka qaato waxyaabaha noocan oo kala wadankii inaan laga helin insha Allah laakiin hadda si aan ugu simeel gaadhaan waxaan idin keenayaa wax lamida assalaamu calaykum wa rahmatullahi